abwaan xasan saleebaan dhuxul laab saalaxa oo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland suugaantiisu ay saameyn mug iyo miisaan la ku leedahay isla markaana kamid ah abwaanada murbaxay ee guud ahaanba dalkan Soomaaliland u dhashay ayaa jaamacadda magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxa uu maanta ku soo bandhigay dhowr maanso kamid ah maansooyin cusub oo ka coriyay nolosha guud ahaanba ku xeeran ummadiisa bandhig suugaameedkaas ayaa waxa uu halkaasi guud ahaanba ka soo qayb galay ardayda jaamacadda magaalada Burco ururada bulshada aqoon-yahano iyo guud ahaanba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco iyo abwaanka caanka ah Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi gudoomiyaha jaamacadda Burco Professor Saleebaan Dirir ayaa waxa uu ku dheeraaday kaalinta uu abwaankani ku leeyahay jihaynta bulshada aqoon-yahan Maxamed Saleebaan Cumar oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in abwaan xasan Saleebaan dhuxul uu taagan yahay kaalintii uu 70-yadii uu bulshada Soomaalida kaga jiray abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi munaasabadan oo guud ahaanba dadkii ka soo qayb galay ay si gaar ah u daneynayeen fahamka guud ee suugaanta abwaankan ayaa geesta kale waxa halkaasi dalada UNITA ay ku gudoonsiisay shahaado sharaf ay ku maamustay abwaan laab saalaxa taasi oo ku mutaystay baydhadeen hogaaminta fiican ee kooxdiisa abwaanka ayaa halkaasi waxa uu ku soo bandhigay maansooyin kala duwan oo ka hadlayay nolosha haweenka guud ahaanba iyo geesta kale qabyaalada iyo waliba tahriibta gale oo ka baxashaday galabtana ku soo noqay xisbiyada uu kala guuro markuu joogo waa gobol gunku sheeg markuu tago beentiyo runtii goob qura ka wada sheeg amaan iyo dhaliil gole hadalkii isugu geeyay mabda gaara ma leh shacabkii wuxuu guda aqoonsaday u garaac dubaan kale iyaguna gadoodii boodhar gaara loo horiyaa waa geesi sheeg haddii uu gurada tago garwadeena laga dhigo gaajo way naga hadhi ku soo gaabi sheekada danta guud siyaasiga tiisa gaarka doorbiday garanlee aan oon weli go aan ka wada rogin 10 laabna guud mara xaajooyin ku galo gudkana shaxdiid dhinaca kalena abwaan xasan saleebaan dhuxul laab saalax waxa uu goob fagaara kala hadlay ilaa 3,000 oo arday oo qayb ka ah ardayda wax ka barata dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sheekh Ibraahim ee magaalada Burco hooyada la tacaashay tabaalaha yoomka adduun tartankiisa dartaa u tabcaantay cadeediisu taagtay tamaandha gadaysay intay wax tashiishay dharkaaga tolaysay hooyada ku tabcaysay maruun hatis qaado maruun ha istiirsho maruun ha tanaado maruun lib ha taabo hooyada waxtarkaaga ku soo tashanaysay tafteeda ha baadhan abaalkay tabayso intaad kala tuurto huqiya naxdin taagan ha saaranin tuurta tunkana ha ku qaadan wa Cabdisattaar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.